Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada aynu ku soo qaadi doono barnaamijyadeedkan haddii rabbi laga helo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalka xisbiga xasan sheekh maxamuud oo meeshii ugu xumaa gaaray filla Soomaaliya oo dhabar jabisay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Madaale iyo sidoo kale Muungab oo garab ka helay madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba maxaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan idin wadaagi doonaa warar iyo macluumaad ku aadan gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo ka fakarayo موقفkiisa ku aadan kasi mid noqoshada xisbiga Damul Jadiid ama xisbiga Damul Jadiid la oran jiray ee wadajirka iyo cadaaladda hadda isu bedelay laakiin laga tirsanayo cadaalad darro xubnihii ugu badnaa oo xisbiga ka bixi rabo hadda waxaad la wadaagi doonaa macluumaad guud oo arintaasi ku aadan dagaalka culus ee laga soo warinayo inuu ka dhex taagan yahay xisbiga xasan sheekh maxamuud qodobada kale waxaa ka mid noqon doona dowladda Soomaaliya oo jawaab culus ka soo saartay gadoodkii maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha cadde iyo cabashadii shacabka haddaba maxay tahay talaabada dowladda Soomaaliya ee qaaday awaamiir la siiyay shirkadda ajnabiga ee maamusha garoonka diyaaradaha cadde ee magaalada Muqdisho waxaan la wadaagi doonaa macluumaad arintaasi ku aadan Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo walaaca ku sii kordhiyay kooxda madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba maxay tahay talaabada uu qaaday wararkaas ayaan ku soo qaadi doonaa barnaamijyadeedkan haddii loo qadaro soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowno wararkeena khilaafkii ugu cuslaa ayaa ka dhex taagan xisbiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo maantana tallaabo oo ay filla Soomaaliya qaaday ay dab ku sii shiday dagaalka ka dhex taagan xisbiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee loolanka xisbiga dhexdiisa la xiriira haddaba tallaabada ay maanta filla Soomaaliya qaaday ayaa la xiriirtay in lagu dhawaaqay musharaxa xisbiga wadajir iyo cadaalad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee gobolka Banaadir sidaan ognahay gobolka Banaadir waxaa jiro xubno badan oo musharaxiin ah kuwaasi oo doonayay inay gobolka Banaadir ay ka noqdaan musharaxa xisbiga waxaana si weyn ugu loolamayay marka laga soo tago ragga kale gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Madaale iyo sidoo kale gudoomiyaha hadda talada haya Muungab waxaana la sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si adag ugu la saftay Muungab dhinaca kale tan uu ka heliyay Madaale haddaba arintan ayaa caro xoog leh ku abuurtay Madaale waxaana la soo wariyay in maanta markii uu tagay xafladda looga dhawaaqay in Muungab uu yahay musharaxa xisbiga ee gobolka Banaadir in Madaale caro awgeed uu iscelin waayay halkaasina uu isaga soo tagay haddaba arintan ayaa muujinayso heerka uu taagan yahay dagaalka culus ee ka dhex taagan xisbiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee wadajirka iyo cadaaladda xilalka hoose ee xisbiga ayaa laftirkoodu waxa ka taagan dood culus xubnihii ugu badnaa ayaana hadda ka fakaraya in xisbigan ay isaga baxaan rag maamul goboleedyada kamid ah oo horaan xisbiga ku biiray laftirkooda tabasho ayay muujinayaan laakiin in Madaale uu xisbigu ka baxo ayaa wararku qaar ay sheegayaan in dooda ugu culus ay noqon doonto haddaba isku soo wada duube maanta wixii ka dhacay magaalada Muqdisho dharbaaxo kulul ayay ku noqotay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Madaale oo markaasi ay ku noqotay wax uusan ka filaynin in ay ku dhici doonaan oo filla Soomaaliya ay tallaabadaasi qaaday Madaale marka laga soo tago Muungab ayaa hambal leeyahay waxaana uu noqday musharaxa xisbiga xasan sheekh maxamuud ee gobolka Banaadir ama ninka u sharxay inuu sii hogaamiyo gobolka Banaadir waaga gulu wararkan ayaa daawanaysa dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabo culus oo la xiriirta garoonka diyaaradaha cadde magaalada Muqdisho cabashadii laga muujinayay haddaba wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa awaamiir ka soo saartay cabashadii iyo banaanbaxyadii maanta gilgilay garoonka diyaaradaha cadde magaalada Muqdisho oo shaqaalaha ay shirkadda ajnabiga ee shaqadooda ka ceerisay ay dhigayeen haddaba shirkadda Fafuur ayaa ay dowladda Soomaaliya waxay fartay in shaqaalahaasi shaqadooda dib loogu soo celiyo dhammaan cabashadoodana la xaliyo haddaba tan ayaa waxay ku timaaday kadib markii gadood xoog maanta garoonka ay ka dhigeen shaqaalaha shaqo joojina ay ku dhawaaqeen haddaba talaabadan sidee aad u aragtaa artada hoos ayaa nagu reebi kartaa warbixinada ugu dambeeya soo koobayna agaasimihii hore ee hadda sirdoonka mas'uuliyadda qaranka Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa ciriiri xoog la gelinaya filla Soomaaliya waxaan hadda uu qaadayo tallaabooyin oo uu filla Soomaaliya rajabeel ugu ridayo kadib markii dhammaan xubnaha madaxweynta siyaasadeed uu hal xisbi isugu geeyay kuwaasi oo walaa xoog ku abuuray filla Soomaaliya saacadii la soo dhaafay kooxda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa bilaabay inay weerar dhinaca baraha bulshada ku qaadaan agaasimihii hore ee Fahad Yaasin Xaaji Daahir iyo xubnaha xisbiga uu ku dhawaaqay kaasi oo tan iyo markii xalay lagu dhawaaqay wadnaqabad ay ku noqotay filla Soomaaliya waxaana ay bilaabeen inay siyaabooyin kala duwan ay warbaahinta bulshada ay kaga caayaan iyagoo shakhsiyaadka xisbigaasi ku jirana ay kuwa fashilmay ay ku tilmaamaan
Fahad ayaa markaan dhisanaya Shirdoon Saacid oo ra'iisul wasaare hore ah ninkaasi oo hadda loo arko inuu yahay ninka kursiga ka ridan kara Xasan Sheekh Maxamuud. Maxaa ku biirinaysaa nabadgelyo.